wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda Hirshabelle ayaa kutubada Qur'aanka Kariimka kala wareegtay wasaaradda diinta iyo awqaafta dowladda federaalka Soomaaliya. Kutubadan ayaa la gaarsiin doonaa goobaha lagu fidiyo diinteena suuban, gaar ahaan goobaha lagu barto Qur'aanka Kariimka. Munaasabadda kutubada lagu wareejinayo waxaa ka hadlay wasiirka diinta iyo awqaafta dowladda Hirshabelle Xildhibaan Sheekh Abuukar Xasan Cali Maqani, wuxuuna mahadcelin u jeediyay mas'uuliyiinta wasaaradda diinta iyo awqaafta xukuumadda federaalka Soomaaliya. waxaan maanta u mahadcelinayaa wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan wasiir ku-xigeenka saaxiibkeen Shariif Saalax oo isku howlay kutubadan aad arkaysaan inuu dadkii muxsiniinta ahaa ka soo ururiyo, iyadoo markaa loogu talagalay inay wax ku bartaan ubadka Soomaaliyeed, kuwa waliba aad u liita oo aan gadan karin kutubada aan gadan karin in loo qaybiyo. wasiir ku-xigeenka galabta wuxuu lagu wareejiyay qayb ka mid ah kutubada aad arkaysaan, waxaana loogu talagalay dhammaan isteedyada in yacni loo qaybiyo la wasaco ayuu ugu talagalay. waxaan leenahay wasiirka khayr badan Allah siiyo, fajazaahu Allahu khayr aljazaa, ilaahay ha ka abaalmariyo. had iyo jeer wuxuu isku howlaa sidii markaas yacni dadka muxsiniinta ah waxyaabaha ay ku saacidi karaan ubadka Soomaaliyeed oo gaar ahaan dadka danyarta ah oo aan gadan karin kutubada aan iibsan karin. marka waa u mahadcelinaynaa insha Allah, waxaan rajaynaynaa wasaaradda inaysan tan noqonin tii ugu dambeysay oo marka kutubahan ay wax naga siisay aysan noqonin ee ay noqoto mid joogto ah inay noqotaan ka rajaynayaa. Farah Muuse, Hirshabelle TV, Jowhar.